iyadoo ay ku beegan tahay muddadii ay ka dhammaatay madaxweyne Siilaanyo xilligii xalaasha ahaa ee shacabka reer Somaliland doorteen 26 Juun 2010 taasoo ay maanta ugu sadgooday 26 Juun 2015 shan sannadood oo aan maalin ka dhinnayn waxay dadweynaha reer Gabiley si weyn u go'onayaan muddadii xukuumaddiisu jirtay ballanqaadkii ansixinta gobolnimo oo ay kaga hungoobeen kadib markii madaxweyne Siilaanyo xiliyadii ololaha iyo muddadii xisbigiisa kulmiye guud ahaanba dalka ka waday ololayaashii dawladaha hoose marka laga soo bilaabo sanadkii 2002 Noofambar oo ku beegneyd markii xisbiga kulmiye kaalinta labaad ka galay doorashooyinkii dawladaha hoose ilaa doorashadii madaxtooyada ee 2003 oo 80 cod lagaga guuleystay waagaasoo reer Gabiley guntiga dhiisha iskaga dhigeen sidii madaxweyne Siilaanyo ugu guuleysan lahaa talada dalka waxaanu waayadaasi ilaa intii la soo gaadhayay doorashadii golaha wakiilada ee 2005 ugu ballan qaadi jiray Gabiley in xisbigiisa kulmiye uu aqoonsan yahay gobol dhameystiran waxayna reer Gabiley cod aqlabiyad leh ugu codeeyeen doorashadii 2010 ee uu kursiga fuulay 26 Juun 5 sannadood ka hor salaadiinta iyo cuqaasha Gabiley oo iyagu mar walba warbaahinta kala duwan u soo marin jiray in loo ansixiyo gobolnimada gobolka Gabiley annagoo ku barayna oo karaamo iyo sharaf iyo qadarin iyo xishmad madaxweyne kugu qadarinayna gobolka Gabiley ila loo ansixiso gobolnimadiisa si kastaba ahaatee markii ugu horeysay bilowgii xukuumadda madaxweyne Siilaanyo Gabiley marka laga tago gobolnimada ay sad badan ku weyday xukuumaddiisa gaar ahaan xiliyadii isaga madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo tuhunka badan laga qabay 2 sano ee hore inuu ansixin doono gobolnimada Gabiley hase yeeshee ay iskugu soo biyashubatay hal bacaad lagu lisay haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa ah mar labaad xisbiga kulmiye ma ku geli doonaa ololaha doorashada madaxtinimada isla markaana mar labaad ma hor iman doona kumanaanka kun ee reer Gabiley inay codkooda siiyaan si uu ugu ansixiyo gobolka Gabiley waa Cabdirasaaq Axmed Ayaan ilka case shabakada wararka Harwanaag News Gabiley